حسنو dhegayso faylkan maalinta lagu wareejinayay si fiican naga hago waxaan kale oo aan kugu wareejiyay codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qayb galayno Security Council-ka aan uga qayb galayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashada aan u galayno 2024 si aan maxaan ku raadaan u fariisano kursigaas 2025 taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxal reeb aan uga tagay dib laga sheegay maana waa mas'aaladan baa laga heesiyay inta kaliya ma suga hadegdeginin xukuumadda ama madaxweynihii hore oo aqoonsan anigu yahay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku faanaa dayn cafin ayadana faylkeeda oo dhamaaday ayaa gacanta laga saaray waxa uu ku faanaa oo qabataynta hubka inuu Soomaaliya ka qaaday ayadana faylkeeda oo dhameystiran baa gacanta laga saaray oo la yiri wax u dhiban ma jiraan xasanow intaa waxaa sii dheer oo faylka maalinta lagu dhiibayay ciidanka Eritrea oo 5,000 ahaa oo la tababaray oo bad iyo berri military force loo tababaray oo gacanta laga saaray oo isla maalmihiiba aad dalku soo ceshatay maanta aad halka hayn hal hadda waa qof hadda waa shakhsi adigu aad gacantaada ku birbireysay waa ku birbireysay mindida ka asas birtaad ka asas waxa ku faani kara waxaan haddii wax yar oo yaxyaxa idinku jiro inaad la soo istaagtaan tirahdaan waxaan rabaa xalay oo kale miidiyan soo sheegtaan tirahdaan madaxweyne Farmaajo buugi ama faylkii aan noo dhiibtay run buu noqday oo aamada tirahdaan Farmaajo run buu noo sheegayay oo faylkii qaramada midoobay u geeyay way hirgashay oo dayn cafintu ii dhiibay way hirgashay oo qabatayntii hubku way hirgashay Farmaajo waa mahadsan yahay wax run ahayd wuxuu noo sheegay iyo faylku noo dhiibay intaas la rabay inaad bulshada u sheegtaan bal lama rabin inaad tirahdaan birmada Xasan Sheekh هو قبطينتي وقاضي برمادة حسن شيخ لما ربي وكنا مركو كوري تشني وانا قبطين تخبك انو لما يستري سيدو كلا كوري تشني دين عفنته وافر مرحاضات منه افر مرحاضات او تشلان منه افرتين انو كغدبيي او ان واحد بوينتي او دمانين الانجو ان كيل ugu dhawaaqo ay u dhiman tahay waa tana maalintaasna isxasuusta ma beenisaan faylka la wareegteen waa beenta waxba dhiman anaga dhamaysteena ma tiraadaan imaan ba ayadana waxaan cadeyn lahayn ay reeban yihiin dhageyso ugu daray xogta aan ku siiyay faylashan ku siiyay waxa kamid ah hadeen cafinti iyada naftigeeda World Bank iyo IMF-ka annagana afar marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha Allah haday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhameystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meesha ugu fiican ay tagayso oo dalka laga cafinayo deemaha lagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintan xorriyada qaadanay arrimahaas oo dhan waa dhaxal reeb madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne waxaan ku leeyahay sharciyada lagu doortay iyo dastuurka aad jabiyay xaqqa noo siinay madaxweynihii hore inaan ku dhaho madaxweynihii hore Xasanow haddaba waxa jirta waxaad adigu qabatay oo lagu xasuusan karo ma hayna ka xaqdiyo oday Soomaaliyeed baad waxaad qabatay oo lagu xasuusan karaa jir yaa qabatay marka yaa qabatay weey qofka ka qabo هذا التري يحق بتيد هذا سنداو يحق بتيد هذا على كورو يهي أنا خيرك يحق بتيد ده هو حق قبل وين الشجع وين الشجع يا وحق بتيد مرك أنكوهم بليانية خيرك أكيد أنا تري وعيس وحد وحق بتيد خيرك أكيد أنا تري أبجان وحد أقبتي أو كرو سوي إن تلاهي القفا خيرك يجا حين مقدسك ما قدينك وحق بتيد محاوين
oo dhalinyarada reerkaagu ku faanaan taqaan oo iska daa wax kale dhalinyarada aan siyaasad iyo waxa shaqadooda ahayn iyo tiktokerada ah wax qabadkaaga ku faanaan wax qabadka u qabatay reerkaaga bay ku faanaan lama qarsadaan waxay qabaan wax hero ah oo lagu faani karo uma arkaan wax macnaha cayo uma arkaan wax hero ah waa kana dhalinyarada waxa reerkaagu qabatay ayaa ku faanaya waa familygaaga ila dhageyso waa kuma gudoomiyaha gobolka banaadir waa abgal gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sido waa abgal gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir waa abgal talaa ciidanka xooga dalka waa abgal talaa ciidanka cirka waa abgal talaa ciidanka ilaalada wadooyinka taraafikada waa abgal talaa ciidanka ilaalada munshibi waa abgal talaa ku xigeenka hay'adda sirdoonka nisa waa abgal talaa nisa ee alboorka aadan cadde waa abgal agaasimaha guud ee duulista hawada waa abgal agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waa abgal agaasimaha hay'adda tubsan waa abgal agaasimaha hay'adda musiibooyinka waa abgal agaasimka ku-xigeenka madaxtooyada qaranka waa abgal agaasimaha macadka wasaaradda caafimaadka waa abgal la taliyaha MD qolqolka hubka waa abgal safiirka Soomaaliya ee Kenya waa abgal safiirka Soomaaliya ee Djibouti waa abgal wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda waa abgal magaalo marnaba ma aha wax qabadkaasi mid laga ankiri kara ma hadduu waxa isla yahay in xasan sheekh maxamuud